Bismillaah. Asalaamu calaykum waraxmah. Muuqaalkii hore waxaan uga soo hadalnay wax la yiraahdo deck. Muuqaalkan waxaan ku qaadanaynaa subdeck. Ereyga subdeck micnihiisu waxa weeye waa khaanad hoosaad ayaan dhihi karnaa. Marka haddaan soo aragnay deck oo looga jeedo khaanad, kanina waa subdeck oo waa khaanad hoosaad. Marka farqiga u dhexeeya khaanad iyo khaanad hoosaad wax kale ma aha, waa xagga darajada oo keliya. Subdeck-gu waxba uguma duwana deck-ga. Wuxuu leeyahay astaan kasta oo uu lahaa deck-gu yeelan jiray. Wuxuu leeyahay wax walba oo lagugula talin jiray markaad damacsan tahay inaad samaysato deck. Oo tusaale ahaan in khaanaduhu ay bataan, decksku haddii ay bataan oo samayskoodu bato, culays inay keenayaan oo aysan fiicnayn. Sidoo kale subdeckskuna in la badiyo iyana ma qurux badna, oo taas waxay kala siman yihiin deckska. Sidoo kale waxay leeyihiin astaan kasta oo adigu uu leeyahay decksku ayuu leeyahay astaamo muuqda iyo qaar daahsoon, intuba waa leeyihiin. Farqiga keliya ee u dhaxayn kara deck iyo subdeck wax kale maaha, waa qaabka ay isu hoos tagaan. Oo subdeck wuxuu hoos tagaa deck. Waa maxay haddaba ahmiyadda uu leeyahay subdeck inaad samaysato? Khaanadaha kugu jira inaad u kala ratibato subdeck ahaan maxay tahay faa'iidada ku jirta? Faa'iidada iyo ahmiyadda uu leeyahay inaad subdeck aad samaysato waxa weeyaan waxaad iska ilaalinaysaa kala daadsanaanta oo khaanadahaagu inay ku nidaamsanaadaan ayaa wanaagsan. Tusaale buuxa waxaa noogu filan khaanadahan hadda noo muuqda noogu jira application-ka noogu jira Anki. Kani maaha Ankigaygii rasmiga ahaa waa midaan kugu tusaaleynayo barnaamijka Anki. Marka khaanadahan oo dhan u fiirso, waxaad u jeedaa geography, waxaad u jeedaa history, dhinaca kale luqadihii sida Soomaali, Carabi, Japanese, dhanka kale marka loo fiiriyo mahmaahyo, gabayo. Haddana waxaad aragtaa sidoo kale culumtii medicine-ka sida anatomy, biochemistry, biology. Marka wax kala soocan ma jiraan oo way isku wada furan yihiin kulligood. Wax kala soocaya oo hadda noo muuqda ma jiraan. Marka waa kala daadsanaan wey, waa isku dhex yaac. Shay kasta waa in loo heli karaa meel loogu toosi karo. Tusaale wixii luqada ah in hal meel loogu toosi karo, wixii saynis ah in hal meel loogu toosi karo. Dabcan qasab waajib kuguma aha inaad khaanadahan iyo culumtan aad meesha soo gashato. Adiga ikhtiyaarka iska leh. Waxaad ka dhigan kartaa luqado oo keliya, waxaad ka dhigan kartaa cilmiga bulshada oo keliya, waxaad ka dhigan kartaa sida hadda noo muuqata ayagoo isku jira oo ayaad isticmaali kartaa macnaha. Marka waajib maaha inaad khaanadahan oo dhan aad wada samaysato, waajib kuguma aha. Waxay ku xiran tahay rabitaankaaga ay ku xiran tahay, laakiin waa tusaale ahaan macnaha waxaan rabnaa inaan muujino ahmiyadda uu leeyahay subdeck. Annaga oo markaasi ka duulayna kala daadsanaanta imika inoo muuqata iyo sidii loo xalin lahaa. Tani markaa waxay muujinaysaa baahida loo qabo subdeck. Waa hagaag. Waxaan gelaynaa markaa qaabka loo sameeyo subdeck. Laba qaaboodba waa loo sameeyaa. Labadaba waad u baahan tahay inaad isticmaasho. Waxayna ku xiran tahay xaaladda aad ku jirto. Labada siyaabood ee loo sameeyo subdeck na waa laba qaabood oo isku hadaf ah oo waxay ka siman yihiin in subdeck la sameeyo. Laakiinse waa laba qaabood oo aad u kala baahnaan karto waqtiyo kala gedisan. Waxayna ku xiran tahay hadba xaaladda aad ku jirto iyo midka aad u baahnaan karto. Waajib maaha inaad hal mar wada isticmaasho labadaba. Waxaa laga yaabaa inaad hal wado isticmaasho, wadada kalena iska dhaafto. Waxaa laga yaabaa wadada kale iska dhaafto inaad raacdo, wadadan kalena iska dayso. Mararka qaarna waxaa dhici karta inaad labadaba iskula isticmaasho oo aad Ankigaaga khaanadaha kugu jira inaad ku kala cabirto. Waa macquul oo iyaduna waa meeshay ku jirtaa. Marka nidaamka ugu horeeya ku bilaabanaa.
nidaamka ugu horeeya waxa weeyaan khaanad kuu samaysan ayaad dul tegaysaa, kadibna waxaad leedahay long press, waad riixaysaa riixitaan xeel dheer, macnaha long press. Ha iska taabanin oo keliya. Haddii aad taabato khaanadda ayaad gudaha u gelaysaa, waxaa loo geenayaa barxaddii su'aal weydiinta. Halkaas ma rabno waqti xaadirkan, waxaan rabnaa inaan sameyno subdeck. Marka adigoo banaanka jooga ayaad khaanadda dul tegaysaa, kadibna waxaad leedahay long press, waad riixaysaa khaanadda. Markaad riixdo waxaa kuu soo baxaya liis ama menu. liiskan ayaad ka dooranaysaa meel ay ku qoran tahay create subdeck oo ah qodobkaasi labaad, kadibna waad ku dhufanaysaa. Kadibna waxaad qoraysaa magacii aad u bixin lahayd subdeckgaas. Dabcan waa sidii aan kusoo aragnay markii aan soo sameyn jirnay muxuu ahaa deegga. Markaan soo sameynaynay ayaad sidoo kale tan ku sameynaysaa subdeck. Magaca aad u bixinayso subdeckgaasuna ha ka turjumo hadba xogta lagu shubayo, sidii aan maaragtay soo niri markii aan kasoo hadlaynay deegga. Kadibna waxaad leedahay okay. Waxaan u jeednaa khaanadan hoose inay hoos tegayso khaanadan kore. Khaanadan hoose marka waa subdeck, kan korena waa deck. Marka farqiga u dhexeeya deck iyo subdeck wax kale maaha. Subdeck waa khaanad hoosaad, deegguna waa khaanad buuxda. wax kaleetana kuma kala duwana. Subdeck iyo deck waa isku wada mid markasta marka laga reebo xagga darajada, oo sida noo muuqata subdeck ayaa wuxuu hoos tagaa deck. qaabkaasina waa qaabka koowaad ee loo sameyn karo subdeck, waxayna ku xiran tahay amase aad u baahnaan kartaa xaalad gooniya, adiga ayaana dabcan go'aamin kara. nidaamka labaad ee loo sameeyo subdeck, nidaamkan labaad waa uu ka yara adag yahay kii hore, gaar ahaan marka la isticmaalayo applicationka Android-ka oo ah midka mobilka lagu isticmaalo, ankiga telefoonka lagu isticmaalo. ankiga lagu isticmaalo computerka markay noqoto nidaamkan aad buu maaragtay ugu sahlan yahay, laakiinse Android-ka waxoogaa waxaad moodaa inuu yar adag yahay, laakiin waa la sameyn karaa. waxaad sameynaysaa khaanadda aad doonayso inaad subdeckga aad ka dhigto ayaad dul tegaysaa. kadib waxaad leedahay long press oo aad riixaysaa. markaad riixdo waxaa kusoo baxaya menu ama liis. liiska kusoo baxaad ka dooranaysaa rename. markaad sameyso khaanadda aad dooratay magac ayay leedahay. magaceedaas gadaashiisa ayaad ku qoraysaa colon, calaamad la yiraahdo oo kuu muuqata keyboardka telefoonkaagana laga heli karo. calaamadaasaad 2 jeer taabanaysaa oo aad ku qoraysaa magacaas gadaashiisa. calaamadaasna waa inaad 2 jeer taabataa. isla calaamadaas gadaasheed waxaad ku qoraysaa marka khaanadda aad la damacsan tahay inaad hoos geyso khaanadan hadda kuu dooran, si aad macnaha khaanadan aad uga dhigto subdeck. nidaamkanna waxaad u baahnaan kartaa oo muhiimad weyn uu leeyahay waa markii khaanadda aad damacsan tahay inaad subdeckga ka dhigto ayba wax ku jiraan oo casharo ay ku jiraan, markaasuu muhiimad weyn leeyahay. labadaas siyaaboodba waa loo sameeyaa marka subdeck. midkii ayaa fiican ama midkii ayaan isticmaalaa haddii ay tahay su-aashu? waxaan ku dhihi lahaa waxay ku xiran tahay un maaragtay rabitaankaaga ayay ku xiran tahay iyo xaaladda hadba aad ku jirto. haddii aad damacsan tahay inaad khaanad ay wax ku jiraan ka dhigto subdeck, waxaad u baahnaanaysaa inaad adeegsato nidaamka labaad. taasi markaa waxay tahay waa khaanadda marka ay wax ku jiraan. wixii intaas ka soo hara waxaad adeegsan doontaa nidaamka koowaad ayaa kuu wanaagsan oo kuu fiican.